aad ayaa u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina maanta fursad aad u wanaagsan ayay ahayd inaan maanta salaama daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Warqad News TV ku soo dhawaada warbixintan gaarka waxyaabaha idin kula wadaagi doona waxa qaybka xogta ra'iisul wasaare Roble oo hanjabay guddiga doorashada heer federaal iyo kuwa khilaafaadka ee cusub oo dhawaan u magacaabay sababtu maxay tahay kulan gaar ah ayuu la qaatay sidoo kale waxaan warbixintan idin kula wadaagi doonaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Galmudug oo xilka laga qaaday iyo mid cusub oo la doortay maxay tahay sababtu uu gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka ee Galmudug xilka looga tuuray warbixintan ayaan ku dul istaagi doonaa iyo cabashaha guddiga doorashooyinka ay ka gudbinayaan ra'iisul wasaare Roble fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaro si share garay oo saaxiibada kale la sii wadaag page-keena Warqad News ku soo beer sidoo kale YouTube-keena subscribe ka noo saar haddii aynu ku bilowna ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulan la qaatay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxayna xogta ayna ka helayno kulankaasi ay sheegaysaa inuu ku soo dhamaaday isfahan la'aan xubno ka mid ah guddiga heer federaal ee doorashooyinka oo ka qayb gala kulankaasi oo ay ra'iisul wasaare Roble la yeesheen ayaa waxay sheegeen Roble ay kala kulmeen handadaad iyo sidoo kale cagajugleen xooggan xubnahan oo qaarkood inala hadlaya inoo xaqiijin ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu doonayo in guddiga uu ka dhaxmarsado danihiisa gaarka ah isla markaana uu isaga doonayo inuu maamulo qandaraasiyada uu ku bixinayo guddiga ugu horeeyaan gaadiidka iyo hoteelada uu la degayo dalal uu ka mid yahay Mareykanka ayaa isaaka inala hadlay waxayna iga codsadeen inaan gudbino cidda amaamiirta aan farna qaadan weyso xitaa kuwa ay ku soo magacaabeen dowlad goboleedyada ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble oo la hadlayo xubno ka mid ah guddiga waxaana kulanka ka dhex sheegay magacyada xubno fadhiyo shirka oo ka biyo diiday dalab hore kaga yimid ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta warmurtiyeed ka soo baxay madashii golaha wadatashiga qaranka ee shirkooda Muqdisho lagu soo gabagabeeyay ayaa lagu cadeeyay in guddiyada doorashooyinka si madax bannaan u gutaan waajibaadkooda shaqo balse tilaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Roble ayaa muujinaysa inuu doonayo inuu saameyn shakhsi ah ku yeesho go'aanadooda taas oo mar kale doorashada dalka mugdi gelin karto tilaabooyinkan lagu weeqayo madax bannaanida guddiga ayaa ka dhigan in xafiiska Roble uusan rabin in doorashada lagu soo gabagabeeyo waqtiga loo qabtay horay waxayna tilaabadan keeni kartaa in mar kale ay soo cusboonaato dagaalkii ka bilowda faragelinta guddiga ee dabayaaqadii bishii hore Roble waxa uu waqti badan oo dadaalaha ku bixinaya sidii doorashada dalka u qabsoomi lahayd inkastoo guddiga doorashooyinka xogaha hoose ay ka helnayna ay sheegayaan inuu wada sidii uusan madaxweyne Farmaajo saameyn ugu yeelan lahayn arrimaha doorashooyinka xilligan taas oo Roble keenayso in cadaadis xooggan uu saaro guddiga doorashooyinka balse lama oga habka uu dhaqan gali doono amarada iyo amaamiirta oo soo saarayo Roble oo ah kuwa baalmarsan sharciga hore guddiga ee golaha wadatashiga qaranka u soo saareen oo in guddiga doorashooyinka noqdaan kuwa xor iyo xalaal ah tilaabooyinka ay qaadayaan ee arrimaha doorashooyinka dhanka kale guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Galmudug oo maanta kulan hore loo sii shaacin ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ayaa ku dhawaaqay in xilka ka qaadeen gudoomiyaha guddigaasi Maxamed Daahir Guuleed guddigan ayaa la sheegay in dood dheer iyo falaqeyn kadib ay codsadeen in xilka laga qaado gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Galmudug Maxamed Daahir Guuleed guddiga ayaa sidoo kale sheegay in gudoomiye cusub u doorteen Maxamed Qaasim Maxamuud gudoomiyaha cusub ee la doortay ayaana hore u ahaa xogayaha guddigaasi guddigan ma sheegin sababta keentay in xilka laga qaado gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Galmudug dhinaca kale Maxamed Daahir Guuleed ayaa sheegay in aysan jirin xilka qaadis lagu sameeyay waxaana beeniyay warqadda guddiga isagoo intaa ku daray inaysan jirin shir ay isugu yimaadeen guddiga doorashada ee Galmudug oo dhacay tilaabada uu qaaday guddiga doorashooyinka Galmudug ayaa ku soo aadaysa xilli madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble ay ku heshiiyeen in 15 Janaayo ee bishan ay dib u bilaabato doorashada xubnaha golaha shacabka ee dalka sida waqtiga hore lagu heshiiyay lagu soo gabagabeeyo tilaabadan ayaa horseedi karta caqabad iyo loolan cusub oo dib uga bilaaban kara doorashada dalka lagu soo dhameeyo waqtiga loo qabtay Galmudug ayaana hadda ah maamulkii ugu horeeyay oo musuq ba'an lagu sameeyo doorashada kuraasta golaha shacabka hore uga dhacda Dhuusamareeb kuwaas oo qayb hayeen Yaasiin Faray iyo sidoo kale kuraastii senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xaalka doorashada dalka oo xilligan heshiiskii dhacay kadib jawiga deganaa ayaa cagajugleynta Roble iyo sidoo kale tilaabada guddiga doorashooyinka Galmudug ay qaadeen oo xilligan qalaaso cusub abuuri karto waxaana mar kale waji kale u yeeri karta doorashada dalka oo markii horeba mugdi badan u hareeyay Mareykanka war ka soo baxay xalay waxay ku sheegeen oo hanjabaado culus ugu direen haddii 45 cisho madaxda Soomaalida doorashada ay ku soo gabagabay weyso inay ka qaadi doonto tilaabo sharciga waafaqsan oo sheegeen inay kama dambaystahay hanjabaadooda
sidoo kale dhinacyada Soomaaliya taageerahayaana dhankooda dadaal ku bixinaya in doorashada waqtiga loo asteeyay ee golaha wadatashiga qaranka ay ka dhabeeyaan oo la soo gabagabeeyo si xasilooni dalka lagu horseedo. inta ayaan warbixintan kusoo gabagabeynayna saaxiibayaal, fadlan haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow oo page-keena Warqad News TV kusoo biro, follow the like noo saar YouTube-keena, sidoo kale booqo subscribe-ka noo soo saar. waxaan markaas halkan idinkugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay dalka iyo arrimaha markaasi taagan. mahadsanidin.